haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran janaalkayga Cabdifataax adigoo dhiirigelinaya subscribe dheh like saar commenti gambaleelkana riix maasanid saaxiib maalintii shalay ahayd waxaa garoonka Banaadir Stadium ka dhacday kulan aad u xiiso badan oo dhexmaray kooxaha Muqdisho City Club iyo naadiga ciidanka booliska Soomaaliyeed Hegan ciyaar qaybkeeda horyaalka Soomaaliya Premier League kulankiisii 20aad kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan labada kooxood ayaa soo bandhigay kubad ay aad ugu qancaan dhammaan taageerayaasha u soo daawasho tagay ciyaarta balse qaybtii koowaad ayaa lagu kala nastay eber walow ay fursado badan isku cuneen labada dhinac ay goolal loo filan karay balse ma aysan noqon inay shabaqada gaaraan labada kooxood Hegan iyo Muqdisho City qaybtii koowaad ee kulanka balse markii dib iskugu soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta wiilasha Muqdisho City ayaa la yimid goolkii guusha waxa uu dhaliyay xidiga reer Kenya Marcelo wuxuu ahaa gool aad u qurux badan ee dhammaan jamaahiirta u sacabatumay kooxda Muqdisho City sare u kiciyay guusha ay gaartay kooxda Muqdisho City waxay ugu dhigantahay inay gaartay guushii ugu horeysay horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo hore u soo ciyaartay 3 kulan oo horyaalka ah maalintii shalay ahayd waxay ahayd maalin aad u farxad badan ciyaartoyda kooxda Muqdisho City maamulka taageerayaasha iyo macalinka kooxda yeeshee kulanka ayaa kusoo dhamaaday hal gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Muqdisho City Club iyadoona ay guushaasi ay dhiirigelinayso dhammaan ciyaartoyda